waxa uu ka soo gudbay dhammaan carqaladihii soo wajahay noloshiisa. waxa uu ku soo koray sabooltinimo aad u adag iyo agoontinimo. waxaynu ka hadlaynaa waa wiilka muslimka ah ee u dhashay dalka India ee lagu magacaabo Shah Rukh Khan. waa xiddiga loogu jecel yahay dalka India shirkadda Bollywood. haddaba maanta waxaynu inii soo gudbinayaa taariikhda amba guusha weyn ee ka dambaysa inuu Shah Rukh Khan noqdo xiddiga ugu sarreeya dalka India ee lagu jecel yahay dhanka jiliinka. kusoo dhawaada taariikhda Shah Rukh Khan. haddaba taariikhda Shah Rukh Khan waxa uu ku dhashay New Delhi 1965 Noofambar. hooyadii iyo aabihii aad ayay uga fogaayeen wadada hodantinimada. muddo ka bacdi waxaa hooyadii iyo aabihii soo asiibay cudurkii halista ahaa ee dilaaga ahaa ee kansar. waxaa Shah Rukh Khan soo food saaray culayska hooyadii iyo aabihii iyo sabooltinimadu ku jiray, ilaa markii dambe hooyadii iyo aabihii ay u dhinteen cudurkii kansarka ahaa. Shah Rukh Khan waxaa iskugu darsoomay sabooltinimo iyo waalid la'aan. Shah Rukh Khan waxaa soo wajahay murugo aad u badan, noloshiisa cidhiidhi aad u badan uu dareemay. isagoo da'yar, Shah Rukh Khan waxa uu isku dhaafin jiray murugooyinka inta ugu badan jilliin uu samayn jiray oo hibo Ilaahay u siiyey. haddaba wiilka muslimka waxa uu ku soo biiray shirkadda weyn ee Bollywood isagoo keliya wata talentkiisa amba hibada uu Ilaahay u siiyey jilliinka. isagoo halkaa ku soo bandhigay, isagoo oon wadin family, isagoo oon wadin cid caawisa, isagoo oon helin cid garab istaagta, ayuu waxa uu ku soo biiray shirkadda weyn ee Bollywoodka. waxa uu muddo badan uu u shaqaynayay si nafurnimo ah. waxa uu ka soo qaatay filimaan aad u badan. waxa uu soo metelay filimaanta aadka ula xidhiidha dhanka jacaylka iyo murugada. waynu ognahay qaybta lixaad kale uu ka qaatay filimaanta jacaylka ah inuu daawadayaashiisa kaga oohin jiray iyagoo daawanaya jilliinkaas. nin uu jacaylku ka guurayna inaha uu daawanaya filinka Shah Rukh Khan jacaylka ku saabsan uu dareemi jiray jacayl iyo naxariis. Ilaahay waxaa hibo uu siiyey talent biyura. Shah Rukh Khan mar la weydiiyay xataa waxa uu yiri lagama yaabo oo aan niyadeeda kuma haya inaan ka mid noqdo 15 qof ee ugu cadcad ilaa ku tago qof 15. I didn't think I'll survive till 15. qofka loogu jacaylka badan yahay Bollywoodka. dhammaan uu ka soo gudbay carqaladihii adkaa. waxa uu ku soo biiray shirkadda isagoon haysan wax family ah, isagoon lahayn cid caawisa. laakiin daba markii uu ku soo biiray shirkadda Bollywood waxa uu yiri waxaan helay. I came from Delhi. I had no family. I had nobody. And I tell this to everyone that I have an extended family in all the filmmakers, all these leading ladies, all the producers. Family. waxaan helay dad garab istaaga. waxaan helay dad waxaan hay iga dhigay aniga. oo runtii uu ka wado dadkii la metelay filimaanta, producerskii, waxyaabihii badnaa uu ka waday. dhammaan waxa uu soo jabiyay carqaladihii soo wajahay noloshiisa. waxaanu ka soo gudbay xaydaabkii faqiirtinimada iyo dib u dhigga noloshiisa. hal mid buuna kaga soo gudbay. waa keliya challenge-gii amba talentkii uu noloshiisa lahaa. innaga maxayna la gudboon? maxayse ka baranaynaa casharka amba taariikhda Shah Rukh Khan ee gaaban? intaynaan waxba ka baran ay noo raaciyo tusaale kale. suubanaheennii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam isagana waxa soo food saartay carqalada kuwan ka daran. Nabi Maxamed waxa laga yaariyay dhulkiisa, agoon buuxa, hooyo ma haysan, adeerkiiba dadka ugu necba oo dadka saa ugu diri jiray. waxa caawin jiray dadkiisa. waxa uu la soo korbay carqalada aad u badan oo noloshiisa risk gelisay. dalkiisii uu ka tegay. haddana laakiin mabda'ii uu Nabi Maxamed xambaarsanaa ee ahaa diinta Islaamka inay gaadho guri walba waa uu gaadhay hadafkaas. oo carqalad kuma ay noqon familigaas iyo dadka uu ka soo jeeday ee dhibaatada u geysanayay. agoontinimada iyo sabooltinimadaasi kama joojin. sidaas oo kale Shah Rukh Khan isna wax carqalada ay ku yeelatay noloshiisa isbedel iyo carqalada uu joojiyay ma jirin. inaga maxayna la gudboon? sanad cusub bayna galnay 2023 caawa bilow ah. maxayna la gudboon haddii aanad lahayn adeer taajira, hooyo taajira, aabbe taajira, abti taajira iyo adeer taajiraba aanad haysan? waad ku dhalan kartaa faqiirtinimo, laakiin ku dhimataa khalad ah. waxa ina la gudboon inaynu si hardworkernimo iyo talentku Ilaahay ina siiyey inaynu ka faa'iideysano. aynu nolosha maanta ku jirno iyo nolosha aynu rabno aynu isgaarsiin karayno ayaa ina la gudboon. marka maanta carqalad iyo marsiyo haddii aad ka dhiganaysid dadka kamaan dhalan dad noocaas saasan ahaan lahaa adiga noloshaada dib u dhigaya.
tusaalayaal cadcad waxaan haysanaa xagga diin iyo xagga macdiiba ah oo micnaha waxaan ka wadaa nabigeennii suubanaana tusaale cad isaga naga filano sunnihiisa in la raacaaba waa guusha rasmiga ah. wiilkeena walaalkeena muslimka ee Shahrukh Khan isna runtii carqalad aad u adag ka soo gudbay, isagana inaynu ku daynaa aynu tusaale ka dhiganaa aynu dream ka dhiganaa aad bay u fiican tahay si in carqaladaha iyo wajahaadda nolosha waxyaabaha nala soo wajahaya aynu uga gudubno dhammaantood. inahaas maanta barnaamijkeena amba taariikhda ay gaaban aynu ku soo koobi lahayn ee Shahrukh Khan. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.